الفنان أبوان حسين شير جامع عيار جعل oo kamid ah kooxda qayladaan ayaa maanta soo gaaray magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya fanaanka markii uu ka soo degay madaarka diyaaradaha Aadan Cabdulle Cismaan Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho waxa ku soo dhaweeyay qaybaha kala duwan ee bulshada xildhibaano fanaaniin fanaanka ayaa gacan qaaday dhammaan qaybihii kala duwan ee bulshada ku soo dhaweysay caasimadda dalka ee magaalada Muqdisho الفنان أبوان حسين شير جامع عيار جعل أيا كشيغي وجدد أو دالك يمد إن أي تهي إن أو دالك كحريو كوحا أو كتل مامي إن أي دالك كسو الدولين كنا باقي إن أو دقال لقل دونو waxaan leeyahay halka kan uma imaanin anugu hadda in aan faakahaysi iyo fancayl aanu imid waxaanu imi in aan dhibka dadka haysta la qaybsado in cadowga wadanka ku soo duulay ee wax magaratada ah ee aan tuso inaan xabar dhexdeeda ama gobolada Soomaaliyeed aan ka dariir doono tuutaha waxaan sida inaan dagaal galo Ambassador Maxamed Xuseen Awliye oo ah safiirka dawladda federaalka Soomaaliya dalka Senegal oo kamid ahaa mas'uuliyiintii soo dhaweynaysay abwaanka ayaa ku tilmaamay fanaan wadani ah waxay ila mid tahay maanta shacabka soo xaadiray oo karaameeyay kooxda qayladaan wadaniyiinta Soomaaliyeed waxaan idin leeyahay qalbiga ayaan idin ku hayn doonaa insha Allah Xuseen waxaan leeyahay Xuseen wuxuu leeyahay waxaan leenahay horta sloganka lagu soo dhaweeyay waxay ahayd xamaasadaadii baa Xuseenow xamar oo dhan soo xaadirisay ayay ahayd waxaan leenahay Xuseen waxa weeye dadku